sharaf weyn oo ah inaad naga soo qayb gashaan kulan aqooneedkan oo aan runtii idinku soo doornay in aanu ka wada faa'iidaysano ganacsiga aynu ku jirno iyo qaabka sharciyada islaamka iyo sida ay ka qabto. runtii barnaamijkan markaan aan soo dooraynay waxaan ka fiirinaynay meelo badan inkasta uu khamiis kasta ka dhaco masaajidka xaaji cali oo tutorka uu khamiis kasta inoo qabto mawduuca haddana waxay noqotay customerkayga maadaama haddii qaaliga ahaa inaan idinla wadaagno bal kulan aqooneedkan aada su-aalihiinana ka dhiibataan oo weydiisataan culimada maadaama culimadii nala joogtay inaan ka faa'iidaysan. anaga ahmeed weyn bay noo leedahay in qofku ganacsiga uu ku jiro uu barto si aan khataraha ugu waaweyn oo ay ka mid tahay ribada iyo waxyaalaha noocaasa aan dhammaanteed sida wada ilaalino. aada iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga noo soo horteen. waxaan kale oo culimadu mar walba diyaari noola tahay in maaragtay mawduuc kastoo aad idinku rabtaan oo haddaad soo codsataan inay diyaar idin yihiin oo aad waqtiga keliya noo soo sheegtaan iyo mawduuca rabtiin dhammaantiin aad kasoo wada qaybgeli kartaan diyaar amal idin tahay. runtii aada bay noo farxad gelinaysaa customerkayga qaaliga ahaa oo aan maanta aan wada qaadanayno maaragtay mawduucan aan wada qaadanayno. aada iyo aad baad u mahadsantihiin mawduucii baan guda gelayna haddii laha idmo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر علي عبد الله. ما هي المميزات وما هي الخصائص؟ قفك مسلم كانوا حوالي يشو. قفك مسلم كان مركو حوالي يشو. حولهاس أو يا شيء. سيدا أو استعماله يو. يسيدا أو بحين يو. يسيدا أو تصرفه يو. ما هي وجد وانت هاي قفك كلا مسلم كان هاين. سيدا أو تصرفه يسيدا أو استعمالية ما هي وجد وانت ما هي الخصائص؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد ما هذا لدبديت حن ما هذا علينا يا أمل بنك oo kulankan qiimaha badan inoo soo qaban qaabiyey alla subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u geliyo. waxaan kaloo mahad celinayaa ganacsatada sharafta leh rag iyo dumarba oo iyaguna dacwadan iyo yeedhmadan iyo kheyrkan soo ajiibay. iyagana dadaalka iyo socodka ay soo sameeyeen alla subxaanahu watacaala ka aqbalo. kalimaadka iyo talooyinka aan ujeedin doono iska kookoobanna waxa weeye ilaahay dartii allah nooga dhigo mid annaga iyo idinkuba aada ka faa'iidaan oo lagu liibaanana adduunya aakhiraba alla subxaanahu watacaala ka dhigo. kelmadaydu waxay ku kooban tahay insha allahu tacaala alkasbu alxalaal wa ahmiyatu tawaruc. yacni qofku inuu ku dadaalo kasabka ama waxa uu shaqaysanayaa xalaal inay tahay, inuu iska ilaaliyo wixii madmadow ku jiro ama wixii xaaraantinimeynteedu ay caddahay iyada waxa weeye hadal kama taagna in laga fogaanayo. markaynu ka hadlayno diinteenna islaamka ee qiimaha badan waxay aada iyo aada u danaysay qeyb kastoo nolosha ka mida oo bini aadamku uu u baahan yahay axkaam bay u dejisay. haddii ay tahay cibaadadii iyo qofka ruuxdiisa wixii lagu dhisayey, haddii ay tahay adduunyadii iyo xoolihii iyo ganacsigii iyo iibkii iyo wixii lamida oo aynu caawa u fadhino axkaam baa laga jideeyey. haddii ay tahay guurkii iyo qoyskii iyo axkaamtoodii waa la faahfaahiyey. haddii ay tahay maamul iyo siyaasad iyo ummad sida loo hago axkaam baa laga jideeyey. haddii ay tahay isqabsi iyo dadka waxaa soo kala dhex galay, meel kastoo nolosha ka mid oo loo dhaqaaqaba sharcigeenu axkaam buu ka dejiyey. waxaa muhima axkaamtaas welibana qof waliba inta khusaysa ee aanu ka maarmayn inuu si gaara u daneeyo. cibaadadoo kale waa la wada cibaadeysanaya. cibaadada aada la imanaysa inaad ogaato oo aada fahanto oo waxay ku ansaxaysaa aada ogaato waa mid waajib kugu ah. waxaa la mid ah haddaad ganacsado tahay
oo aada ganacsanayso ganacsigaaga wixii xalaalaya wixii xaaraana inaad kala fahanto waa mid lagaaga baahan yahay wey. cumar bn اkhaaab waxa uu ihi laa yabic fii suuqina man laa yacrifu alxalaala min alxaraam, suuqa iyaga yaanu ka ganacsan qofkaan kala ogey xalaasha iyo xaaraanta aan kala ogey ee aan fiqiga aqoon. waxaa aada u habboon kulamadan oo kale inay soo noqnoqdaan oo ganacsatadu iyo culimadu ay iska kaashadaan si waxa weeye axkaamta islaamiga ah waxa weeye loo faafiyo, qiimaha diinteennu ay leedahay marka dhaqaalo laga hadlayo aynu waxa weeye u ogaano, u faafino, u hiilino, loo caddeeyo. waxyaabahaas oo dhan waxyaaba aynu u baahannahay wey. markaynu ka hadlayno xoolahana waa waxyaabaha ugu badana diinta loogu hiilinayo. alla subxaanahu watacaala aayaadka markaad eegto ka hadlaya jihaadka ka hadlaya, aayadaha badankooda xoolaha la horeysiiyey, naftana waa la dambeysiiyey. aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili اllah, wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili اllah. mar walba waxaa la sheegay xoolaha la sheegay, waayo waa lafdhabar, lafdhabar weyi. markaa kusoo dhawaado mawduuca kasbiga iyo shaqada, carabtu waxay ku maahmaahaan laa tuusi calaa xariis bay yidhaahdaan. nin dadaalaya dardaara waxba kaagama baahna, yacni qofku wuxuu ku foogan yahay ee uu danaynayo waxba lagulama dardaarmo. hadda waxa weeye inaan idinku dhiirigeliyo inaad shaqaysataan, idinkaaba ka horeeya, waa baabkiini wey, idinkaa khubaro ku ah. laakiin taynu ka hadlaynaa waa alkasbu alxalaal, waxaa laga shaqaysanayaa inay xalaal noqoto. aayaadka iyo axaadiista markaynu eegno, qofku inuu shaqaysto oo bini aadamka uu ka kaaftoomo, sharcigu aada buu u daneeyey. axaadiis badan ayaa nabiga ka sugnaatay calayhi الsalaatu wasalaam, oo nabigu uu leeyahay la an ya'kuda axadukum xablahu fayaxtaiba fayakufa biha wajhahu khayru lahu min an yas'ala الnaas acطawhu aw manacuuh. qofkii mid idinka midi inuu xadhig qaato oo uu soo xaabaysto, xaabo soo gurto, oo wejigiisa uu ku ilaaliyo markuu xaabadaa iibiyo wixii uga soo baxa, ayaa uga wanaagsan dadka inuu wax weydiisto, ama ha siiyaan ama ha u diidaan. bal sharcigeenu waa xaaraantinimeeyey bini aadan in wax la weydiisto haddii baahi aanay jirin ama xoolo badsi ay tahay. subxaanahu watacaala kitaabkiisa aayado badan wuxuu inoogu tilmaamay in la shaqaysto. waladii jacala lakum اlarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqi. salaadii jimce marka la tukaday, faida qudiyat الصalaaة faاntashiruu fi اlأrض wاbtaguu min fadl الlah. xataa haddii xajka la aado, alla waxaa uhi laysa calaykum junaaxu an tabtaguu fadla min rabbikum. idinkoo xajkii gudanaya haddana inaad ku dhex ganacsataan, waxa weeye wax dhibi kuma sugna. liyashhaduu manaafica lahum, iyagoo xajkii jooga haddana danahooda adduunyana inay gutaan, wax dhiba ma laha. halkaasaa la gaadhsiiyey oo sharcigu gaadhsiiyey in la shaqaysto. laakiin ta sharcigu aadka u ilaaliya waxay tahay, waxaa laga shaqaysanayaa inay noqoto wax xalaala. wuxuuna nabigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam, xadiidkii bukhaari ku yimi min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala can, wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam, aakhiru zamaanka inay ka mid tahay dadku inaanay kala danaynayn xooluhu halkuu ka soo gelayo. ma xalaal bay ka shaqaysanayaan, qaab xalaala ayuu xooluhu usoo gelaya, mise qaab xaaraana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي waxaad nu ka baryaynaa kulankeennan kulan barakaysan, Allah inooga dhigo mid ilaahay lagu dhowaanayo oo janno lagu raadinayo oo diinteennii iyo shareecadeennii lagu kala faa'iidaysanayo. qabaqabayaasha bahda amal iyo ganacsatada sharafta soo qayb gashayna ilaahay ka abaal mariyo.
intaa kadib culimadu si qiimo badan bay uga hadleen nidaamka dhaqaalaha islaamka iyo wanaagyadiisa iyo inay mudan tahay qofka muslimka ah ee ganacsadaha ah inuu xalaal raadiyo iyo xitaa kaan ganacsada ahayn. marka insha allah waxaan uga gudbaynaa ganacsiga maxaa xaaraantinimeeya maxaa xalaaleeya si guud ama qawaacidka shareecada ganacsigu ku xaaraantinimoobi karo haddii la iska ilaalin waayo insha allahu tacaala si kooban u dulmarayna. marka koowaad mucaamalaadka iyo waxyaabaha qofka muslimka uu ka ganacsanayo asal ahaan waa xalaal wey si guud marka loo eego. ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay huwa aladi khalaqa lakum ma fi lardi jamiica, ilaahay wuxuu idin abuuray wax alla waxa dhulka yaalla idinkaa la idin sameeyey. alla subxana wa tacala wuxuu leeyahy waqad fasala lakum ma xarama calaykum ilaa ma drirtum ilayh, ilaahay waa idin faahfaahiyey wax laydinka xaaraantinimeeyey laakiin xalaashii lama faahfaahin. taa macnaheedu waxaa weeye daa'irada iyo inta xaaraantu way kooban tahay waa la tirin karaa kow laba la odhan karaa, laakiin inta banaani way fara badan tahay. haddii la tiriyo kana waa banaan yahay kana waa banaan yahay laga geyoon maayo. بسم الله الرحمن الرحيم. su-aashaydu xagga diinta ay ku saabsan tahay. marka hore culimada iyo qolada shirkadda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. salaan ka bacdi mathalan saving account iyo current account baa kala jira oo xagga waxa weye midna waa mid la xiray oo faa'iido dabcan iyo waxbuu ku xayiran yahay oo waqti cayiman baa loo xiray lacagtaas ay xayiranta. midna waxa weye waa mid aad isticmaali kartid markaa rabtid waxaana dhigan kartid waxna kala bixi kartid. seebay noqonaysaa xagga zakada lacagta xiran matalan sakadii baa soo gashay lacagtiina waa xiranta oo waxba lagama saari karo ma banaankaad ka bixinaysaa amse iyada lafteeda laga jarayaa meel kale lagu xawilay. جزاكم الله بالخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. saving account iyo current account waa laba nooc ka mid ah accountnada bangiyadu ay macaamiisha u furaan. marka xagga zakada un baan dee laga weydiiyo aan uga jawaabaya. labada mid walba sakadeeda waxaa lagu leeyahay qofka hantidu ay u taallo. qaabka loo bixinayana waxay ku xidhan tahay sida isaga iyo bangiga uga heshiiya. ma bangigaa u wakiisho bixinaya ma isagaa bixinaya. mar haddee taa ku xidhan tahay haddii uu bangigu wakiishayna systemka looga bixinayo waxaa laga yaabaa in lagaga heshiiyo in laga gooyaba laga saaro hadduu saving account iyo xidhan yahay in accountka laga saaro qeybtaa oo markay ka baxdo haddii lagaga heshiiyey ganacsi oo kale oo investment account uu yahay oo kale in intaa zakada laga saaro oo lacagaha fara badan ee bangigu hayo tiisu ka mid tahay ta macaamiisha haya ka mid tahay haddii isaga loo wakiisho isaga tawaliyay oo isaga mas'uuliyadda ay saarantay akoonada oo dhan wixii ku waajibay inuu ka gooyo. haddii aan sidaa ahayn oo qofka customerka ahi uu isagu ay tahay inuu ka bixiyo waxay noqonaysaa inuu markaa banaanka ka bixiyo. haddii kale bangiga ugu noqdo oo qeybta ku waajibtay uu ka codsado in looga saaro markaa bangigu ka aqbalo oo ay ila tahay inuu ka aqbalayo bangigu waxay noqonaysaa markaa intii zakada ahayd inuu ka soo saaro. hadduu awood u leeyahay inuu banaanka ka bixiyana banaanka inuu ka bixiyo. inahaasa markaa ka odhan lahaa wallahu subxana wataala aclam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرات بان جوجا ألعاب بان يبيع بمثلا تصالحان أدو حنجو مهرات كمبيوتر ويبيع مركا مهرات كلو درس كيجا شيء بيجي جوا يلعب تبيجي جوا ذي وين يزو صعطة مركا محرقنا يرادوني وشيء كان ألعاب كمبيوتر كاني سيسي مركا كمبيوتر كيجي إيه مهدو وانكو كينيا تام بنان تشرح هذا. وأمد كل سؤال أصلا نقطة وهي qofka waxaa laga yaabaa ganacsada wax iibiya in loo yimaado iyadoo shaygii ka go-an yahay uu iibin jiray marka si uu macmiilka u ilaashado qaabab kala duwan baa dadka qaar sameeyaa
qaar waxay sameeyeen waxaa laga yaabaa shaygiiba qofka intuu ka gado inuu dabeedna shaygii u doono usoo qaado taa sharcigu waa diiday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ui laa tabic maa laysa cindak waxaadan ahayn oo aadan milkiyin ma iibin kartid waxna kama faa'iidi kartid walaa ribxu maa lam yudman axaadiis badan baad diideysa laakiin taa uu sheegay oo ah iibkii adoo aan qofkii ka iibin inaad qof walaalkaaya kasoo daynsato laptopkii lagaa doonayey ama shaygii lagaa doonayey si aad kii mid lamida ugu celiso mid lamida ta noocaas iyadu wax dhiba ma laha waxaa loo baahan yahay un inaad deynta aa kala qaadateen wax faa'iida aadan ku siin oo deyntaa uu ku daymiyey aan wax kaa faa'iidin taa waa la ilaalinayaa waxaa kaloo la ilaalinayaa qofkan ku sugaya customarka ku ah inaadan shayga kasii iibin shayga inaadan kasii iibin taasi waa makhraj la ilaalin karo insha allahu tacaala laakiin inta dadka badidiisu tan kale ku dhacaan wax laga yaaba inay iibkii intay sii rideen hadhow shayga doonaan taana sharcigu ma ogola insha allahu tacaala banuugta way ku badan yihiin hadda puntland oo si fiican bay waxa weye u shaqeeyaan laba qiso oo yaryar baan rabaa marka inaan oo banuugtu ay soo kordhiyeen number ko horta waxay dhaheen maalgelin baan bixinaynaa inta badanna banuugtu waxa ay iibinayaan waxa ay iyagu hayaan maaha hadda wadaadku wuxuu yidhi lacag bay kuwaas bixinayaan kuwa laftigooda suuqa inta alaab kasoo gataan dira waxay dhahay halkaas laga raajo alaabti waxay hayaan maaha in badan kale culimadu way ka hadleen waxaa kaloo jirta 20% baa la saaray alaabtaan u baahnaana waxaa laga helay China ama waxaa laga helay Imaaraadka waxay dhaheen ka doona halkaas lacagta waa la soo iibiyey alaabtaada halkaas ugu wareejinayna waxaan hadee transportation badan baa jira oo wadanka uu kala fog yahay maraakiibtii dooniyihii xagaa baa jira alaabtii iyadoo aan soo gaarin bayba sida ku degtay waa la isqabsaday marka ururtu hata anagu waxa weeye xoolay aad ku leeyahay waxay ugu soo wareegin bay maxaa waxay ugu leeyihiin xoolay meel fog bay jiraan arrintaasna banuug inta badan way sameeyaan oo xoolaha waxaa la rabaa inay soo iibiyaan inay qof meesha u joogo keenaan laakiin waa ka soo horjeesteen arrintaas oo kale culimadu dhowr jeer kala hadashay waxa kaloo dhacday suuqa waxa laga soo iibiyay sonkor bagiga soo iibiyay in baa loo soo dhiibay waxay aan alaabtii hal igu soo wareejiyo qaarka too ka qaaday inta boonal ii dhiibay waxa la isku qabsay xamaarigii waxa weeye waa la xisaabtamaya oo sentiga lagu xisaabtamaya bangigu xaq ma u leeyahay xoolahan uu soo isagu uu iibiyey oo meesha waxa weeye shirkada ka iibsaday inuu aniga banaanka inta uu soo dhigo oo igu wareejiyo anigu si xaq ma u leeyahay inaan inta boonada qaato oo shirkada uu alaabta soo rarto xamaalkeeda aan bixiyo halkaas xoogaa sentiya ku jira meel walba sentiya la isku xiriirsanaya marka su'aasha aan rabaa taas weeye muhiimadeedu bismillaah raxmaan raxiim waa dhowr su'aalo isku guda jira su'aal waxaad moodaa inay u noqonayso asalkii muraabaxada oo walaalkeen wada dambe geliyey oo ah bangiga laftiisu lacag buu asalka lacag buu bixinaya imaam shaafici raximah allahu tacaala kitaabkiisa al-um muraabaxadaas hadda bangiyadu fuliyaan siday tahay buu u tilmaamay wuxuu leeyahay bangi maaha isagoo qof caadi ka hadlay laakiin bangiguna waa la mid وإذا أرى الرجل سلعة هدين من كلا تصو ألعاب وقال اشتري هذه وأنا أربحك فيها وله قاضو أنا معاش بان كاسينيا فالشراء جائز يبقى سوى بالناية وإمام الشافعي والله بضي بقول هجري هاي يوح كلوي مركب بنك وارد مدونين قاري مو هاي سنين كما بايع مشتري لكن من كاس ولا مدي شافعي شيء وليه هاي هدين من إنسان يمادو له ورألابتن باندونيا قضاء إيجا إيبي أنيجا إيبك سوى بنا كيبو كنا لمدي شافعية ده حنابلة ده يو حنفية صدق ده وابنية مالك كده حقا هذا الجلسي تسوى أصل كأ قفكو أما هندسها هك أنا السو إيبك وأنتو سوق صاو إيجا محل وجبهنيا ولا حلو بهنيا هي جاد نوع عاصو كلا عقف عقفيو
dabeedna wuxuu soo waariday 100 cagaf ama qof baa u yimid oo yidhi war cagafyaan doonayaa adaa gacan dheer ama dhaqaale badan hayste 100 cagaf soo waarid oo ka garanayaa ama ha hindiso cidda wax gadaysa ha hindisto ama cidda macmiilka garanaysa fikradda ha keentee mar haddii wuxuu yahay soo iibso oo soo milkiyo si sax ah u soo iibso si sax ah iga iibi waa banaan dabcan shuruud bay leedahay dee hadda xilligeedi ma joogo taasi waa qodobna wuxuu ahaa alaabtii bangigu wuxuu yihi China aan ka iibinaya China kula wareeg halka ka soo guddo waxaaba dhici karta alaabtii inay badda ku degto lacagtina waa laga doonaya waxay ku xiran tahay qaabka aad u heshiisaan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay al-muslimuna ala shurutihim ama inda shurutihim muslimiintu waxay ku heshiyaan isku shardiyaan bay ku qabsoomayaan haddii uu ku yiraahdo anigu waxaan ka iibsanayaa alsoomaa doonayn cagafyo 100 saalay hadda oo kale China yaalan haye China ku gadanayaa halkaasaan doonayaa inaad cid wakiilato aan ku guddoonta mana soo qaadaya anigu wuxuu waa baac iyo bahalka iyo shira wax kala iibsi nabi sallallahu alayhi wasallam inama al-bay'u an tarad yani bay'u wixii lagu kaaraalin noqdo ila inuu leeyahay ya alladina aamanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil baatili illa an takuna tijaratan an tarad minkum dadka muuminiinta xoolihiina si baadil ah oo kala cunina ganacsi aad sagar litihiin mooyaan haddii markaa qofkii wuxuu aqdi waa heshiis marka laga yimaado yuu ku jiifaayay yuu ku toosan yahay marka laga yimaado waa heshiis ganacsi haddii customerku aqbalo inuu alaabta China ku gudoomo heshiis buu ku galay waa inuu xagga ku gudoomo cid u dirsadaa hadduu gudoomayna mas'uuliyadii waa ku wareegtay inuu markaa isagu aqbalo oo dhaw waxaan ku gudoomayaa China ama Dubai iyo inuu aqbali diido oo yiraahdo anigu ma China Dubai ku gudoomi maayo halkan kaga iibsanayaa isaga xor u ah inta heshiiska la gelin marka waxa uu saalan yiraahdo China ku gudoomi maayo raalliga ahaado waxaan fiirsanayaa bangi kale oo keenayo halkan badeecada keenaya oo aan ka iibsado hadduu sataa yeelo oo meel dheer oo badadabadooda oo ay dhici karto in mahaalik iyo dhibaatooyin ka sokeeyaan hadduu ogolaado oo heshiis ku galay inuu ku gudoomo dee isaga ogolaaday wax waliba shilka isdhigta lagu qalaso ma soo sababta kuma maahin marka hadduu ogolaaday dee xadiiskii baa qabanaya oo dadku waxay ku heshiyaan ya ayuha alladina aamanu awfu bilcuqud muuminiintii ballanka iyo caqdi heshiiska la gashan oofiya baa Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay marka haddii sidaa uu ogolaaday isaga ka tanaasulay xaqiisii ahaa badeecada halkan in loo keeno hadduu aqbalay xagaas ku gudoomay hadduu gudoomay mas'uuliyaddu waa ku wareegtay hadday degtay ka degtay isaga ka degtay bangiina muxuu ku leeyahay hanti buu ku leeyahay laakiin wuxuu xaq u leeyahay anigu China iyo Dubai iyo badadabadood ku gudoomi maayo dalka hala keeno badeecadii aan ka iibsaday haddii isaga lagu heshiiyeen waa in halkan loo keenaa haddii bangigu yiraahdo Soomaaliyan keena boosasa ka soo dejinaya oo markaa badda ay ku degto bangiga ka degtay customerkii kamay degin qayb saddexaad baan ilaa su'aasha kamid ahayd haddii bangiga صح وي بنكيغا marka beecan waxa la biyuuc al-amaana beec al-murabaha wuxuu ka mid yahay biyuuc al-amaana macnaheedu yahay waa beec ku dhisan is-aaminaad oo la kala soocayo maxaa bangiga ka galay kharash badeecada muxuu ka faa'iideeyay oo waxa loo kala sooco qiimaha asalka iyo faa'iidada haddii marka badeecada inta bakhaar bangigu ka iibiyo oo sida sharcigu yahay ay tahay inuu soo qaado alaabtii bangiga soo qaado bakhaarka ma aha inuu isku xiro customerka iyo bakhaarka ma banaana oo waxa la doonayaa bangigu intuu iibsado alaabta inuu tamallugo la soo wareego qabdoodo si ay damaankiisa u gasho oo sharcigu isaga ku ilaaliyay waxaad ka baqayso haddana adigu iska dayicin wuxuu ku leeyahay sharcigu waa inuu iibsada la soo wareegaa ilaa uu ku keenayo oo meeshii aad ka gudub ku keenayo isaga mas'uuliyadu saaran tahay mar haddii ay sidaa tahay oo bangiga ay tahay inuu alaabtii la soo wareego kharshiyaadka ka galay la soo wareegidda wuxuu ku darayaa qiimaha shayga sida sharcigu yahay shayga wuxuu ku kacay buu kuu sheegayaa iyo waxa uu faa'iido ka doonayo marka xamaalka haddii ay sidaa tahay isagaa bixinaya laakiin wuxuu saaranayaa alaabtu saaraya inaadan adigu ka gudoomi karin bakhaarkana bangigu ma diidina sharcigaa diiday النبي صلى الله عليه وسلم
حديث أي تمام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. النبي صلى الله عليه وسلم وادي دي إن لقوا إيبيا ألابته ماشي لقوا إيبسدي إلا قف كيبسدي وكقاطع ماشي وقول يسي جيستو أما ميل أنا هين ماشي وكو إيبسدي وقاطع. marka shardi sharci uu tilmaamay way alaabta inuu bag la soo wareego soo qaadida kharashka ku baxay sharcigu wuxuu ogol yahay in la saaro waxa qiimaha shaygu u imanayo kadibna faa'iidada marka loo gudbo marka waxaan isleeyahay tamboonada aan boono maqaal ka baxay mutay kartaa waa ka hadalay sharcigan ku ogolayn in hadee bayd ma hayo al bakhaarkii alla baashirto toos al badacadi uga qaadato wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.